raadkii shalay kaambooni wixii ka dhacay kaambooni tuuba maanta laga rabaa Puntland inay ka dhacdo. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka Soomaalida qodobada aan ku eegi doonana waxaa markaasi ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay xaaladda maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan ku soo koobi doonaa wararkii ugu dambeeyay xiisadda maamulka Puntland iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. dhinaca kale magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee markaasi maamulka Puntland dhaqdhaqaaqyo xooggan oo caawa ka soconaya ciidamo markaasi kasoo baxay magaalada Garowe ee gobolka Nugaale ee maamulka Puntland oo gaaray magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. ciidamadii BSF ee ku sugnaa waqooyiga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari lagu amray inay si degdeg ah isku soo dhiibaan iyo xogay u dambeeyay macluumaad dheeri oo kasoo kordhaya xiisadda maamulka Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaan muuqaalkan idin wadaagi doonaa. dhinaca kale waxaan eegi doonaa maamulka Jubbaland oo ka hadlay dagaalkan. waxay sheegeen in markaasi Siciid Cabdullaahi Deni oo markaasi dagaal adag la gali doono dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu tilmaamay in wixii raas gambooni ka dhacay ay ka dhici doonaan magaalada Gaalkacyo haddii madaxweynihii hore ee dalka waa markaasi Xasan Sheekh Maxamuud ugu yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo dagaalka oo markaasi ka diiwaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. maamulada Puntland iyo Jubbaland oo iska kaashanaya dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya kaga imaanaya iyo xogay u dambeeyay macluumaadka dheeriga ee caawa ka imaanaya magaalada Boosaaso iyo sidoo kale magaalada Gaalkacyo ayaan muuqaalkan idin wadaagi doonaa. dhinaca kale waxaan markaasi ku eegi doonaa muuqaalkan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo wada abaabulkii ugu dambeeyay oo doonayaan inay dib uga saaraan deegaano ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee dhawaanada isaga baxeen iyo maamulka gobolka Hiiraan oo ku baxay ayaan muuqaalkan idin wadaagi doonaa. soo dhawaada daawadayaal. waa habeenimo markaasi Arbacii bixayso Khamiisaan soo dhaweynayno taariikhdu ku aasaysan tahay 5 bisha 8 August sanadda 2026. aynu ku horeyno maamulka Puntland. dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada BSF ayaa saaka waa berigii hore waxa uu ka qarxay magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland iyo sidoo kale waa markaasi ciidamada maamulka Puntland ayaana dagaalkaasi qayb ka ahaa iyadoo la maqlayay hubka noocyadiisa kala duwan. magaalada Gaalkacyo waa berigii hore ee saaka dagaalkan u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland iyo sidoo kale ciidamada BSF oo garab ka helaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dhacay aagag markaasi ay Puntland ay maamusho waqooyiga magaaladaasi xare Istanbul lagu magacaabo ay ku sugnaayeen ciidamada BSF. taliyihii hogaaminaya ciidankan oo Maxamuud Diyaano walaalkiis ayaa isaguna waxaa la sheegay in markaasi dagaalkan markii uu qarxay uu isaga baxay magaalada isagoo gaaray xere ay maamulaan ciidanka Danab. wixii intaa ka dambeeyay ciidamada maamulka Puntland ayaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug dhinaca Puntland ee maamusho. waxaana markaasi la tilmaamay inay gacanta ku dhigaan xeradii BSF iyo hub iyo saanad ay laayeen ciidamadii markaasi BSF oo ku sugnaa xerada Istanbul ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo. wixii intaa ka dambeeyay ciidanka maamulka Puntland war-saxaafadeed ay soo saareen waxay sheegeen in howlgalka wejigii koobaad ay soo afjareen kooxo hubeysan oo lid ku ah ammaanka magaalada Gaalkacyo. waxayna tilmaameen in markaasi xilligan wixii ka dambeeyay ay sugi doonaan ammaanka magaalada Gaalkacyo. wixii intaa ka dambeeyay xaaladdu maanta gelinkii dambe way deganeed dhaqdhaqaaqyo kala duwan ayaana laga dareemayay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. halkaasi waxaa markaasi dhaqdhaqaaqa waday ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo iyagu xeryo kale ku sugnaa oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaana halkaasi waxaa la sheegay in markaasi dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay ka wadeen. dhinaca kale warar soo baxay ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo fara badan ay ku daabulayso magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. waxaana markaasi la qorsheynayaa inuu halkaasi uu tago Asad Diyaano taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed. waxaana markaasi lagu wadaa inuu la kulmo ciidamadii BSF ee hubkii saanada ciidan laga wareegay oo hogaaminayay walaalkiis Maxamuud Diyaano. waa markaasi Maxamuud Diyaano waxa uu markaasi kula hadli doonaa qaabka loo wajihi doono dagaal marka la gali doono maamulka Puntland. sidoo kale wuxuu soo hadal qaadi doonaa waxyaabihii markaasi ku galifay in Maxamuud Diyaano uu isaga baxo xerada markaasi Istanbul ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. wuxuuna kala hadli doonaa khasaaraha markaasi ka dhashay dagaalkaasi hubka iyo saanada ciidan ee looga furtay oo ciidamadii hogaaminaya Maxamuud Diyaano ee BSF ee ku sugnaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo xerada Istanbul ee ku taala magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. dhinaca kale wixii inta ka dambeeyay waxa markaasi caawa markaasi dhaqaaqyo xoogan laga dareemayaa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee xarunta maamulka Puntland ahna
waa caasimada ganacsiga ama xarunta ganacsiga maamulka Puntland. xukuumadda Siciid Cabdullaahi Deni markay soo afjartay dagaalkii markaas ay la galeen magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug waxay u jeesteen xariyo ay markaas ciidamada BSF ay ku leeyeen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. ciidamo ka soo baxay magaalada Garowe caasimada Nugaal ee markaas maamulka Puntland ayaa waxay markaas gaareen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari xarunta ganacsiga maamulka Puntland. halkaasi waxaa ku sugan ciidamo BSF oo iyaguna markaas xorooyin kala duwan ku leh magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo ah xarunta ganacsiga maamulka Puntland. Siciid Cabdullaahi Deni oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe waxa uu sheegay in 24 saac loo qabtay ciidamada ku sugan maamulka Puntland ee ka marqaata dowladda federaalka Soomaaliya. waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeyay la soo afjari doono wixii inta ka dambeeyay ciidanka ka marqaata Siciid Cabdullaahi Deni oo maamulka Puntland ayaa waxay ka soo ambabaxeen magaalada Garowe Nugaal ee markaas caasimada gobolka Nugaal ee maamulka Puntland waxaana markaas ay gaareen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland. halkaas dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa caawa laga dareemayaa waxaana markaas wada ciidamada maamulka Puntland oo ka marqaata Siciid Cabdullaahi Deni waxayna markaas la sheegay inay weerareen xero markaas ay hareereeyeen xero ciidamada BSF ku leeyeen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland. ciidamada BSF oo hore uga dagaalamay ciidamada maamulka Puntland aaga laag ee markaas u dhow magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaana waxa la sheegay in markaas xorooyin kala duwan ay ku laayeen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland. wixii inta ka dambeeyay Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu qabtay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka marqaata in markaas ay cagta mari doonaan haddii ayna markaas ayna u hogaamiyeen awaamirta maamulka Puntland. bal hadalkan la dhageysta. raadkii shalay Kaamboni wixii ka dhacay Kaamboni tuuba maanta laga rabo Puntland ay ka dhacdo oo aan laga fakaraynin war dadka Puntland degan waa kuwii shalay dowladnimada dhisay dhaqan bay leeyihiin beec ma galaan kala tuur ma galayaan jimcaalaha la geenayo jimcaalaha la magacaabaya waa jimcaalihii raas Kaamboni muxuu kaga bedelay waa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku anjabaya in markaas wixii raas Kaamboni ka dhacay ka dhici doonaan magaalada Gaalkacyo sidoo kale magaalada Boosaaso haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay markaas isku daydo in markaas ay weerar kale ku qaado maamulka Puntland. maamulka Jubbaland war-saxaafadeed oo ka soo baxay maanta ayaa u muuqday mid markaas ugu goodinayso ciidamada markaas dowladda federaalka Soomaaliya iyaguna ku sugan magaalada markaas maamulka Jubbaland. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo xukuumaddiisa waxay soo saareen in markaas si adag ay dagaal ula gali doonaan ciidamada maamulka markaas dowladda federaalka Soomaaliya. haddii aynu fiirino gobolka Hiiraan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya militariga Soomaaliya qaybta 12aad ayaa wada waa markaas qaban qaabadii ugu dambeysay dib ugu noqonayaan deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale deegaano ay isaga baxeen dhawaan. gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo maanta markaas booqday furimaha dagaalka ayaa waxa uu sheegay in xeelad dagaal ay isaga baxeen ciidamadan xilligan wixii ka dambeeyana ay markaas qaadi doonaan wiji dagaal oo markaas ku aadan sidii looga saari lahaa deegaanka Teedaan iyo sidoo kale deegaanka markaas degmada Maxaas iyo sidoo kale degmada Moqor ay ku sugan yihiin dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaana wada gulufkii ugu dambeeyay ay ku doonayaan in dagaal ay kaga saaraan kooxda Al-Shabaab qayb ka tirsan dalka. waxyaaba ka soo kordho wararkeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa. guud ahaan caawinta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wararka Soomaalida tan iyo maqalkeena xiga aan idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo.